xubno soo gudda abaaraha heer qaran isla markaana hogaamiye wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ayaa soo gaaray degmada Garadha galbeed gobolka Sanaag wafdigan ayaa kulan sawaraysi la qaatay gudida abaaraha iyo maamulka degmada Garadha Cuqaashi waayilkii waxgaradka degmada Garadha isla markaana soo kormeeray goobaha lagu soo ururiyay dadka ay abaaruhu saameeyeen ee gudaha degmada Garadha iyo tuulada Fadhigaab maamulka degmada Garadha mudane Farxaan Ciise iyo Chief Aqal Abdirsiis Ducaale Cilmi ayaa ka warbixiyay xaaladda abaareed ee ka jirta degmada Garadha iyo deegaanada hoostagaba iyagoo arinta ka hadlayeen hadalladooda wax ka mid ah sida tan ناس واحنا عصاينا مثلنا هدي اللي هلاي قاري دود اللي هايو بيحد عامينيا إنه هرتا ويران عديان دقمك السميد للسيرة أسوأ شيء هرتا من دقمك السميد للسيرة ويران سيدا المرة قرنا فاحنا وقرنا لبا قاري اللي بيبغوا يلو قاري دت كلو صوبرو ومالها صوت قال كالو جيو يو قاري بيوده هو سوى دامية مركب بعدين قبل كيسو قارسيسين ميت هذا ميت قرنا ما تبغى ودان وتكاس دوان ومدو هلا كسي دامية دقمة واي بايدو بدن بيقبطايو ماليه نقاش هاي وهرات كبدنا يبنكي عيادة شو وسوري سلسلة الله سنة بين وقرد عيله في لذا دقمة لوك الصومال لا نروح على بدن بيها لأنه دوا من عادية كمان يدينو شو كذا بيها لأنه ولا هو حنو دريه مركب وحلا الرجل ده قال الله سنروب كلني الرجل بيصدق الروب كم عليه أسكت بارود درسني ويسوي حروب كم هذا خايفين أضل الرجل ده عيله فيه في رجال على وير هوري وين لما هذين بس كي مكوا سيريس محام كنا هذا نمشي واحد ده هلي كري أريد سوق هذا وحبي قرنا يبقي محام كنا ده بدل ما يبقي بس ما تدري بنانا وران وده حنا كل شيء بيلا يعني متكلم كهذا يا عويان ناس نروح بيجي غير بهنش بيجي غير هو بابي لما عاد شلون بلاقي قال مركز كم ده ونمر سنة كده وتري بيجي يوزيرده فيك بركع سلبية معانا فيكنا وقضة بركع سنة والله كبر هذا كان ناي لا أكبر سكور لنا إنجنير بانو كده بي أنا قصر في كرناي أنا عصينا ريكي سيدا صوبة لنا وقضة ذوك اللي يقول هالك waxaa ka hadlay Sheekh Caawil Faatax wasiirka wasaaradda gaashaandhigga oo ka warbixiyay jeedka safarkoodan warbaahintan aan u qabanaynaa in xaaladayada si degdeg ah aan ugu gudbino ummadda si dareen isku mid ah aynu u qaadano abaarta si adkaanaysa ee baahaysa sidii looga jawaabi lahaa xal loogu heli lahaa taas waxay tahay message aan gudbinayno iyaguna sidaas looga gurmad bay u socdeen waxay tusaysaa inaan wali faraskii laga digin waxay tusaysaa in ay dareenkii garteen u taabtay way garteen wali mas'uuliyad baa idinka saaran inta laga guuray oo lagaga tagay waabo aan roob iyo dhaxal midna ka celinay way ku amaanan yihiin waana ku rajo weynaa inay hawsha waxay sii kordhiyaan mooyaane waxba dhimaynin taa haddaan ku aragnina waa ku bogaadin iyaga iyo qayrkood ciddii sidaas samaysaba oo fal ka sarreeya sidii markii hore inuu nabadda isaga jiifnay loo shaqayn jiray waa in la bedelaa waa in aroortii iyo subaxii la iman jiray oo shaqada la geli jiray 6 saacadood iyo 7 saacadood buuga lagu qori jiray gudida abaaraha heer qaran ayaa soo gaarsiiyay gaari booyada gobolka Sanaag gaarigan ugu talagalay inuu dhaawiyo dadka ay abaaruhu saameeyeen ee ku nool gobolka Sanaag iyadoo la filayo inuu gaarigan wax badan ka taro baahida biyo-la'aaneed ka jirta gobolka Sanaag isla markaana dadka ay abaaruhu saameeyeen ee ku dhaqan deegaanada gobolka Sanaag u gaarsiin doono biyaha oo madar sare muqbahayaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland Garadha